waan waxa ka jirtay magaalada Hargeysa dagaal afka ah oo faysal al waraabe dowladda Djibouti dhaxay afka marka dowladdu dadweynuhu waxay u qaateen in hadii jeer ay yihiin dagaal caynkaas oo iska dhaca laakiin meesha uu ku saleeyahay dadku badankiisu ma oga ما قرنا مرة مصير راعي كلام. مرة بروح نيجينا. حقيقة ضبطها. إجرته. فيصل وأفلقادين يو. دولة جيبوتي. هي. ماشي قصة اسمها. أساسي. بس كم ها أفلقادين. أفلقادين ما. واي. هي. الرأي فيصل بابريس قبطي. هي. مركز حسب قال وكالة تكتجي. هي. دولة جيبوتي. هي برجع وهي لسي. هي لسه هي فيصل بكسر جنس هي حل جا مركي لها أكونتي الله بحي شركة دي الذهبشيل يوتيل الصميح نعاسة واساس أي واحد هذا الحين تكون شرتي حتى إن العق بقولار كنا صدق بقول أو كنا دولار صدق بقول أو كنا دولار إن الرو أي دولة جيبوتي وصدت البرجع هيا لكن وركا صدق بقوله ور عن هو أما عن عدين كرو ما هذا الحين بوه وسيل له هذا اللي waxaan loo jeedaa in dawladda Djibouti ay taageerayso xilliga erro xantoon bay taas haye marka Faysal ay cirka la aadeen Faysal inta cirka la aadeen bariga haye Faysal wuxuu dagaal la galay iyadana dawladdii xilliga jirtay ee Siilaanyo ku dagaal badan dadna odayga Siilaanyo ayaa maalin walba aflagaada loola soo taagan yahay ودقادين ويا ودقادين badan buu ahaa nin ku mashquul hawlahan kale ka socda xukuumaddiisa ayuu ahaa Faysal buu iska eegaa mise xukuumaddiisii buu dhisaa wahan waay saq dhexe ay soo toos life buu soo galay life buu soo galay oday Siilaanyana isagu inta badan shirka jirayd labada habeenimo qaban jira لما صدق على مركز دتك السحلة لبضع ومركز دتك هو وين كذا ما تهرب فش ويد اللحية سيد الدجاج السحنة يا مركز وين هاي بتنا لبضع صوته سياسي ويحب أجا وركي فيصل بعمله بكقنا وكيس صار الشكل اللي ورنشري فيصلوا رئيس ماله شعب كده كبرتوه أوف بكليه يا أوف بكليه هذا عرض يقويني أنا هذا أوف لنا لا يكافئ بل مركه هره أنا الحين هره اسم الله أجنو وخاتم لك تاج فيصل على ورا جارهان هذا الذي بريان كسو يوري كسو برقرية يدو عادة ولا يهي إنه بضيبة مركه ودباتوين لحقره لحد باشو المسؤولية دي سحيل كيسو بحوايو يسوي التاريخ يسوي الأوجا والدنبر يسوي الأوجا وفوكس سمية برج الأوجا قرن كهالك كوس كجال الأوجا سيدو وبساس يشتري الأوجا دباتوي كودت وجسريها إنه مارو بسوا أفلاقات دو يعي أمد دولة سو تاجي الدولة ده وحلق هذا كرباء تاريخ فيصل وحعاد كهالشيء أمده تاجروا يكي عاد كهالشيء عد عاد كهالشيء قوة العضي ملك جاري ويري ومدو كديدي سكا كقبستي قبيلة كوار الشيء حمار كوار الشيء هرجيس أنا على تري مدور بتري ومدو كوديدو أف كتير والدي تاخذ هالك هتكجشله واللوجا مالو البرنك هذا كفر بنتجيه هالك يرى وحق قبرية تلكوان بتريجرية هذا جوها مالو البرا هالك هتخلصها وأنت أفلقادي حمار ودا ترى وحرقة قاعدنا يبماها وحرقة قبرية ماها إذا لقوا شيء بيسود بنا ما شرتو والله علي أوف بوجري يا يسقي سمالا بوفيرا وايه هي فيصل انت انا دغال كلا غلين جيبوتي عرعانه او هيلين nin saaxiib kan oo taqaynay Yusuf Budle halka joogay wuxuu ku magacaabay xogeeyaha arrimaha dibadda xisbiga ucid maalin busna soo kacay oo shir jiraad buu qabto wuxuu ku mismisay Ismaaciil Umar Geelle iyo dawladda Djibouti digaag ka dhigay Faysal shaqadii buu ka eriyay sidee Djibouti u maagta anagu maagu buu bilad eegada beriga wuxuu taagnaa inuu aad u jecel yahay marka dambe isaga ku mismisi doon hadaba dabayaaqadii sanadkii 2015 yaasiin ayaa nin la yiraahdo ina Saciid oo gacanta midig dawladda Djibouti ayaa casmay ninka la yiraahdo Faysal buu casmay Faysal xilliga waa 2015 ka dabayaaqadiisa wuxuu siiyay $50,000 Mareykanka Suriyo haye tii hore ee 300 ee kun ahay ee aan ku yiri waxa loo soo mariyay daabshin ninka la yiraahdo aniga hadal ku daray ma hubo warka laakiin waa war magaalada ku jira san dambe waan hubayada iyadoo xaqiiq iyadoo وبيك ما دبعها ما معها
سوريا معها ولا بلغها بالنسبه لي بركو دي لالوش كاس ما هوش laga doonaya ku sharax هي waxa laga doonaya xisbigiisi u cid inuu burburiyo بلوش كنت كن دولار كليه كنت كن دولار تتسوى ولي اوكي هي marka si uu burburinaya هي murashaxa xilliga oo ahaa Jamaal Ali Xuseen oo dardar la soo galay Soomaaliland oo dhalinyaradu 80% ay taageereen iyo dumarkuba oo ahaa aqoonyahan dhalinyaro ayaa hadii ay ku reeyahay murashax ka ahaa xisbiga Djibouti waxay aad uga shakaday in Jamaal uu madaxweyne noqdo Jamaal isku ficila Jamaal waxay ka jeclaayeen marka Muuse bixi in uu madaxweyne noqdo xilligaas waxay xilligii Muuse lagu wareejiyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gudoomiyuhu mar hadii aad noqotidna waa ninka murashaxa ay madaxweyne noqonaya marka labadooduba waxay ka soo reer macal quwaax bay isku yihiin waa Jamaal iyo Muuse reer xisbi reer macal quwaax way labadoodu wax beeraley way ma wax beeraley ma midna waa kalluumaysato midna waa beeraley waxaan jeeda dalada Somada waa tan beela magac hadii isticmaalo labadoodu habar wal bisli habar wal hoos bisli sidkeeda marka habar washa lama dooniyo inay soo baxaan laba nin oo codkii la kala qaybiyo sitaas aan u dhicin arwasaas sitaas aan u dhicin ayaa marka la yiraahdo dagaalama Jamaal yaa la dagaalamaya ninka konta kale soo dhibay haye waxa la siiyay guri xaafadda maslaha la yiraahdo yaa laga siiyay faysal dowladda Djibouti baa dhistay aye guriga qiimihiisu wuxuu ahaa 250,000 oo doolarka Mareykanka soo far 3,000 buu ka maraya 300,000 buu maraya ma kii kale Siilaanyo dowladdiisu ee ku miisay caayay ee imika u fleeyahay Siilaanyo faysal waxay dowladdu siisay shacabka dhul dawladeed dhulkii wuxuu iibiyo 400,000 oo doolar waa dhalgay ayuu siiyay 400 wuxuu ku iibsaday gurigan dambe 250,000 boo soo hadhay markaa uu safe gareeyay jiibkiisa ku haystaa ruux bariyaan dowladda Djibouti waa deal buu soo galay heshiis haye ilaa waxaan isku daray faysal xagee ka timaa maslaxad Soomaaliland maaha ومصلحات شخصيات أو فيصل لقى شري العجاهن لالوشكا جيبوت كتير رب البان كلام لالوش بان كتيرين هي وحن سمعنا مركا دير كلا قال هشيس كمان كوش راحية هي إن مسبح وقبته مدحين النقضة وشردي إن كمال لا رد على مو أو هو ده لقى سعره تحصل حق بيت هي أنا وحياة شردي هي مركا الله كمال لا رد على مو وإن حسبي يقعد ولا دغالما فيصل حسبي سيرو بربريو ونن مينس ku qarxinays waayahay haye wuxuu kala codsaday saddex wasiir in la siiyo dawladda Muusabix haye marka uu helo saddex wasiir oo beeshiis ciidagala in la siiyo ciidagala saddex wasiir yeelanayo leeyahay saas uu doonayay isagu wali haye wuxuu doonay ha noqdee reer kale ha noqdaan saddex nin in la siiyo oo mid kamida uu beeshiisa ciidagala yahay oo uu fariisto wasiirka maaliyadda وماشي رقال كسبحي نكن فيصل يلا عكت أركتبها كذا هرس مال بلوشي دونا وحنا آخرية أنا قال هلي وي رنتوش وحلي إن النهارده بلوش رحنا فيصل واحد ويسكل لالوش إنه أجنم فيصل باوالا مثل الشعب كريس ماله باوالا وياه أيه هل كان مركب مرسوم وزير كمالية ده أيو عصاي أنت دولة جبتوا بلغاد دجال كيبو قاضي حسبي بو كلا بربري dabeetana markuu arkay in Jamaal xisbigiisii ama xisbigoodii la burburinayo oo gacantii Faysal ku dhimanayo oo ayuu markaa hadal oo xilliga soo jeediyay ayaan dib ugu noqonaa Jamaal oo leh Faysalkani waxa uu la mid yahay diyaaradda inta Hargeysa ka kacday isla Hargeysa garaacday markan daawasho wanaagsan qodob uu gudoomiyuhu ka hadlay oo uu yiri haddii aan u arko nimanka musharaxiinta ka xisbigaygu aan u arko in aan taageersanayn waxay ugu kalifaysaa buu yiri in aan taageero oo ku ilaahdo dadka nimanka kale xisbiga kale ka sharaxan maxay ahaydey codka siiya horta hadalka anagu waxaan u aragnay sidii diyaaradii Hargeysa inta ka kacday isla Hargeysa duqaysay gudoomiyaha kama naafilanaynin inuu xisbigiisa duqeeyo oo ama yiraahdo meel kale ayaa la taas waa mid dimuqraadiyad ka baxsan caalamka meel lagu arkayna maaha nin xisbi gudoomiye ka oo yiraahdo xisbiga dadka ka sharaxnaa ma taageeraya dad kale taageeraya meel
dimuqraadiyadda caalamka ay kaga dhigan tahay oo aynu aragnay ma jirto waxaan u sheegayaa guddoomiyaha in arrinkaasi ay walwal badan u geliyey taageerayaasha xisbiga ucdo xisbi uu guddoomiyaha iyo rag kale ay aasaaseen 10 sanadood baa liisan la siiyey 10kii sanadoodna markay dhammaadeen urur buu noqday annagu markii aanu guddoomiye faysal u tagnay ee aanu heshiiska wada galay labadii dhinac wuxuu nagu yidhi war xisbigu imika waa urur maaha xisbi haddaad doonaysaan inaad ka tartantaan ood musharaxiin ka noqotaan soo saara xisbiguna wuu ka warhaya xoog iyo xoolaba inaan xisbiga dulligna waan soo saarnay heshiisna ku galnay qowlna ku galnay oo isku dhaarsanay haddii aan annagu u aragno in aanu hoggaankii xisbigu nawadaynin oo guul noo horseedaynin waxaan nagu kalifi doontaa inaanu shirweynaha aan caadi ahayn aanu isugu yeerno oo aan kaga arrinsanayno guddoomiyaha iyo hoggaanka xisbiga والله ورنتس وانا نفتي دلايه ونفس دليل سبحان هي وبلياب عادي وي خضر حيد oo ah marwada madaxweynaha Ismaaciil Margeele ayuu la kulmay xilliga haye faysal 15 ka dabeeqada haye waa marka uu qaadanayo $50,000 haye gurigana loo dhisi doono oo maslaha looga dhisay haye wuxuu xaajiyada weydiistay 12 baasaboor oo Djiboutiana oo ciidagala la siiyo ذكر والله إذا قالوا ودالي هي وروا يربح قبل مركي يابتين عندها كده قلت هاي إذا قال إيه باسبور أنا ما قال ميلو دو فين وريا لو حرق سو تريبي ويسك هي رجل نوين يا باسبور كاسك صار فين لح وسير لح باسبور أي أقولات قبل وش لحنا قاعد تري لحنا سواك مغين أي لحنا بنام كل شيء قلنا هاي كمده وحوي عبد الناصر عثمان يوسف قضح بالله هذا وانا كسر كهوسيو وقعن يريس باسبور كسكورتا باسبور كسويس هي لحدي باسبور بكجر هي دبيتو ما حدا انت كده هي wuxuu kala u qaataa oo xisbi walba siiya xisbi qaran kasta oo Soomaaliland $13,000 bishii وسقعة 13 kaas waxa weeye inuu krooyinka guryaha xisbigiisu ay adduunyada ku leeyihiin ay ku kala bixiyo serviceka iyo shirarka ay ku bixiyaan haye ninka la yiraahdo faysal halkan baynu joognaa Mareykanka xisbiga ucid nin baa yiraahdo wakiil baan u ahay guri u kiraysan maartay ما يمسوا اسكو ديار xisbiga ucid ay lacag soo dirto ma jirto aba qiyaab ninkii xisbiga ucid doonay wakiil inuu noqdo isaga qol yar kiraysanaya oo jeebkiisa kala waa inta haye 13,000 gurigii xafiiska u ahaa ucid ee headquarter-ka waa Hargeysa ina uu Saciid baa u iibiyay aw kiroha wala iibiyay hadda isaga hadda iskala faysal baale haye lacagtii kirada xafiiska ku dhacaysay isaga qaata jeebkiisa gurida jeebkiisa haye isaga Cabdi Naasir Cusmaan Yuusuf qodax waxay kireeyaan baabuurtooda ay leeyihiin lankruusarada ay waxa ka kireeyaan isla xisbigooda markay gobolada tagaan oo wali xasramada iyo talaabada iyo gaariga faysal ruux xarif haye ka kireeyo oo kale u laha kiraha lagu khasbo commission guddiga doorashooyinka waa inay ka kireystaan والله بلا واو ما ندو ترجع عسبالسي وحصل ماشي سجلي والمشا waxa ka dhacay dhibaatada daya haye to hadal yaan ku soo ku dheeranay shirki markii hawsha la kala qaybiyay shir ayuu xisbi u cid samaystay uu leeyahay waxbaan kala bedbedelay oo Jamaal meesha waan ka qaaday oo ana murashaxa ayaa tartamaya سوى سوق halka ay ku shiriyeen hudheel daantooda ayaa lagu qabtay daanta ciid galax haye $120,000 ayaa la siiyay oo shirka ku qabto 100,000 waxa siiyay ninka la yiraahdo Maxamed Xaashi oo ahaa wasiirkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland Siilaanyo 100,000 buu siiyay 20,000 kalena waxa siiyay inuu Saciid ku qabso buu yiri dhinaca kalena Jamaal iyo oo doonayay inay yana shirka ku qabsadaan iyo kooxdii diidanayd Faysal ciidanka amniga loo diray mijir dhanba waxa loo diray inay ka joojiyo albaabada suuqa isagana mijir baa ilaalinayay mijir dhan oo ciidanka amniga oo wasaaradda arrimaha gudaha dirtay ayaa xilliga ilaalinayay inna lillahi haye marka dawladda ninka la yiraahdo Soomaaliland ayaa iyana isticmaalaysay Faysal dawladda Djibouti way isticmaalaysaa wuxuu dhan wuxuu isticmaalayeen inuu gurigiisa dumiyo allo geed kula jawoon ka bilay qalab waa fahansan haye lacagtaasna halkaas ayay ku baxday haye
faysal muxuu hadda u maagayaa safiirka ama ninka qusulka u ah ها هي دقالك سقيب dagaalkaas ها هي dagaalkaas wuxuu ku yimid ها faysal Djibouti ma tegi karo ها ولودي hadda ka hor waxa la sameeyay isagoo Dubai u sii socda ayay transit ku noqdeen Djibouti diyaaradii kale markay galayeen ayaa ciidamada nabad sugidda iyo airportka joogay faysalna way garanayaan wadna qayra waxa la yiraahdaa hal baaro si xun baa loo baaray dadkii rakaabka ah iyadoo isaga loo radinay dabeetana boorso uu sito sabsanayda ayaa laga qaaday oo waraaqa ugu jireen dhulka lagu tuuray waraaqihii oo dhan baa meeshi qarsaday ku yaacay dabeetana waxa la suunka bixi wuxuu xisbiga u cid sarkaal baan ahay gudoomiyaha waxaan sheekadana ma soconaysaa aad baa markaa loo cadaadiyay kabihii baa laga saaray dabeetana meeshii transitka Djibouti waa niman dagaal adag kula dagaalmaan Soomaalida ku urayaan korontadii bay ka dambeeyaan intii diyaaradii meelis inna lillahi temperature xilliga kuleelku halkii uu sareeyay maray Djibouti markaas diirka ka dhacay dadkii inna lillahi dumarkii baa qayliyay markaa war khaaf rabbakum war Djibouti dhimanay dumarka awgood isna dawaa diirka baa ka dhacay ayaa markaa waxa la wareeyay wax isku wada dhimanay wax kaas bal dadkan kale la kala nabaabiye show koronto ma tigini iyagu baa marna halkan on off ka dhigay hay Djibouti hadda kula dagaalmaan leerkii ka diminay samad ruux shaacudi oo dagaal xubaa waa niman halisa odagii oo deeqoyay oo rafaaday baa ka digay meesha la yiraahdo Dubai hay dagaalkaas Djibouti kaga socday isagana hay aydan iyo aflagaadadan iyo waxaan uu Djibouti caayo wuxuu ku wadaa wuxuu ogaaday in uu yimid farmaajo Djibouti haye Ismaaciil Umar Geelana ay wada shireen Ismaaciil dooniyo shirka Djibouti inuu ku qabto hay Muuse bixi waxana lala hadlay oo diyaar yihiin haye isaguna aanu ka qayb gali karin Djibouti ma tagi karin oo meel kale tagi karin nabadiga marka wuxuu marmarsi uga dhigayaa qashashaad qalad qashashaad shirka inaan meesha lagu qabto ورادك وقرتيس ألواس إن استقل عيت اللي سيجري لالوش كان أي جبوتي مركلة وبلوضو مركا هو هرسة خلاتك تشرب كل شيء خلاتك تشرب هو جبوتي وحكو خلدان هاي إن أي سياسة الصومال أما الصومالية لالوش استعماش وخلق إن عيد قرب استاج خلق أن موسى بحيتان كيسي وحق قرب استاج خطر حيد ومرود كواد إن أو سعيد بوكيلها مليون دولار بالو استعمال وأساسي وحقاتين كونترايدي أوردن حتى نجمع قبضت جبوتي نساس مس ماي تاسوا قلب أن فيصل على waraabe إن وياهي خلت كيسو سوى وحى قاضنايا إن مجري أمده استعماله إلى هذا السومالان أي عدو كويه جبوتي ينو كخلدين وكخلدين من نوع لا نشكا يعدو نمد المال مال كما قال وهو أساس خلدات كميش كتير وحى كم ذا أمي واحد شرته ركب رمبا كهذ لي سفير كجبوتي أيه ونان كم ذي هاي وكم ذي هاي السودانكا جود فايز على السودان كوا بوربور مدو رب فربض ما كان هرت مركو ورسون حسوديننا دولدن المصبح مدحدا كيا سومالان ميانا عيدو هذا شراي فيما ملالسيرو odayaasha safiiro afhayeenada suuqa jooga ee ama Djibouti caayaya ama Djibouti amaanaya iyagoo magacii dawladda ku hadlaya taas sharaf dhacday ku tahay waa dawladdu ay joojisaa dadka banaanada ka hadlaya iyada mowqifkooda ama Djibouti ku sheegto cadow ama ay ku sheegto saaxiib dawladda u taala waa khalad okay dawladdu saasha labaad way maxay Faysal u qaban laaday oo oran laadahay Faysalow nagama geydide mar dambe aflagaadada raalgelin baan ka bixinaa anagu kama bixin sababta waxa weeyaan sir buu ka hayaa dawladdan dawladdan xukuumadda waa tii xisbigiisa iyo jamaalkan iyo waxa qasisay wixii sii deynaya waxaan sameynaa waaya warbuur mudoowe waan ixtiraamayo saaxiibkaya wuxuu Faysal raalgelin buu ka bixiyay uu Djibouti وهذا لقن أضينه لكن بورمدو هل كان حن كوي دينا بورمدو مركو مدح ذكره يومد ذكره عاية فيصل حال بحد بحوله يمسك كبح كرتا دميت وحن كسر جبيني في سومال لام جدهان أرن دقن حماه عيبة أيات شراء وأنا هل كان ربنا نكسحنا سحنو سيكستا يسوق قبط جبوتي سيكستا ودقالم سيكستا أفلقادو يد الغاف يوحدون هذه الأحمر الأحمر هيا شيء وعيب لغن كان معها إن مروا بالصو هذا القاضو قبضه
marwada koowaad gabadh buu inaga qabaa gabadh buu caan kana in gabadh ereyga la keeno meesha waa sharaf daro khadraxeed way gabadhan u jeedaa inna lillahi waa sharaf dhac Soomaali oo dhan baa gabadh iska qabta dadku wada qabaa nacna waxaan ka maqlay isagoo leh waxa uu naga hayay gabadh iyo baasaboorun buu caankaas ruuxa waa baadhaqa marka dhaqan maaha wax in la isa saxo wanaagsan ismaaciil umar geele keligii ku miisa hadda rabtaan laakiin meelo kale aadina laakiin gabadha ka wareeg yani la gelin halka ma ka tagna